waxaad jirtaa da'da 17 sano iyo ka badan walina kuma kala saarna muhiimadda iyo ahmiyadda ay ku leeyihiin ama ay noloshaada u leeyihiin shantan shay waxaan markasta jeclahay wax kasta oo faa'iido leh oo aan anigana ku faa'iiday inaan idin la wadaago waxaan markasta idin soo gudbin doonaa wax faa'iido idin leh maskaxdiina iyo garaadkiinana kor u qaadi doona insha Allah waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad kanaalka ku taageerto in aad dhahdo subscribe ama ugu yaraan hal qof aad la wadaagto muuqaalkan like-na aad saarto ila joog oo ila dhamayso muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa xog aad muhiim kugu ah السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale waxaan ahay Ibrahim Adam qof kasta oo dhalinyaro ah waxa muhiim ah in uu shantan shay ahmiyad gaar ah siiyo inta uu gaarin heer ay qasab ku noqdaan mar hadii ay qasab ku noqdaan waxa dhici doonta in aad si degdeg ah u samaysato mar hadii aad degdeg ku samaysato waxa dhici doonta in wixii ay ka noqdaan wax aan official ahayn waxaana ka imaan kara ama ka dhalan doona in aad hilmaanto password-yada iyo macluumaadka qaar oo muhiim ah in aad kaydsato midka ugu horeeya ee aad u baahan tahay in aad samaysato waa number 1 bank account in aad yeelato bank account waxay ka dhigaysaa qof u diyaarsan xaaladaha qaar oo ku soo wajihi kara dhalinyarada iyo inta badan dadkeena ahmiyad ma siiyaan midaan laakiin waa mid aad muhiim ugu ah naftaada iyo noloshaada dadka ku nool sida qurbaha ayagu qasab ay ku tahay oo maanta looma sheegayo in ay samaystaan bank account balse fariintan waxay ku socotaa si gaar ah dhalinta iyo dadka wadanka jooga ee ku nool noqo qof diyaarsan mar walba in aad bank account samaysataa kaagama baahno dadaal iyo waqti dheer kaliya waa hal subax oo aad tagtaa xarunta bangiga oo aad codsataa in lagu sameeyo account sidoo kale si aad u samaysataa bank account waa in aad ugu yaraan yeelataa qodobka labaad oo ah number 2 travel documents or passport midaan waa mid u baahan in aad siisaa ahmiyad iyo muhiimad gaar ah sababtoo ah waxaa mararka qaar ku soo wajihi kara xaalado degdeg ah sida xaalad caafimaad ama xaalad fursad ku ah oo muddo kooban ah sida waxbarasho dibadda ah ama safar muhiim ah marka in aad haysataa travel document waa mid ka badbaadin karta in aad ku guuldareysato ama in aad ka faa'iideysan weydo fursadaas qaaliga ah marka saaxiib waa muhiim in aad yeelato travel document si aad u samaysataa kaagama baahno dadaal fara badan waa un dhowr maalin oo aad waqti siisaa sidoo kale waxay ka caawinaysaa in aad samaysataa bank account sidoo kale fariintan waxay ku socotaa dhalinyarada jooga wadanka iyo deegaanada Soomaalida oo dhan qodobka saddexaad ku soo gudbinayna marka wuxuu noqonayaa waa in aad yeelataa ama aad haysataa official social media accounts badankeena social media waxaan ku qoranaa magacyo aan jirin sidoo kale waan sameynaa markaas ayaana noogu dambaysa userkii iyo passwordkii aan ku sameynay taasi waxay keenaysaa in aadan yeelan official account oo aad ku tashan karto marka si aad xogtaada u badbaadsato sidoo kalena aadan accounts fara badan ugu yeelan halkii platformba waa in aad samaysataa hal account oo aad ogtahay xogtiisa oo aadna keedsatay sidoo kale magaca aad ku qoranayso ka dhigo magacaaga saxda ah maxaad ka dhumanaysaa ma dad kale ayaad rabtaa inaad ku dhibaatayso tusaale dadka siyaasiyiinta ama madaxda ka ah wadamada waxa ugu qoran magacooda saxda ah ayaga ayaana kaaga dhow hadii wax la dhibaateynayo marka iska ilow iskana bedel fikirkan ah magaciga kuma qoranayo social media dhibacayga iman kara iyo bala iyo waxyaalahaas oo dhan iska ilow waa muhiim in social media accounts kaaga aad ku qorataa magacaaga saxda ah si aad u yeelataa marka official account waa in aad martaa qodobka afraad oo ah official email or Gmail account emailka ama Gmailka waa shayga kaliya dhammaan inta aan soo sheegnay qayb muhiim ah ka qaadanayo oo dhammaan inta aan soo sheegnay markii aad sameynayso waa lagu weydiinayaa emailkaaga ama Gmailkaaga marka waa in aad yeelataa official email or Gmail account xogtiisa aad ogtahay oo aan hilmaameynin waa inaad markaa maanta samaysataa emailkaaga ama Gmailkaaga saxda ah midda shanaad ee muhiimka inaad yeelatana waxay noqonaysaa official signature ama saxiix rasmi ah in aad yeelataa saxiix ama signature saxan oo rasmi ah waxay ka dhigaysaa qof professional ah oo diyaarsan sidoo kale kuma wanaagsana in aadan aqoonin saxiixaaga rasmiga ah mana wanaagsana inaad meeshaad aragtaaba saxiix cusub aad saarto baasaboorkaaga bangigaaga iyo meelaha kale ee muhiimka ah waxaa wanaagsan in aad saartaa saxiix rasmi ah oo aadan hilmaameynin muuqaalkeena oo aan ku eegaynay ashyaadaas muhiimka ah ee aad u baahan tahay in aad yeelato inta aysan qasab kugu noqonin halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa waxaana rajaynayaa in aad gacan u qaadi doonto kana taxadari doonto insha Allah fadlan kanaalka ku caawi in aad subscribe dhahdo ugu yaraanna aad hal qof gaarsiiso assalaamu calaykum